بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ددوينها الريجي بوتي ميل كستود جوكتين بواندين سلامية. هلغن كينا سياسدات وانسي وضينا وحان ما انت يسدول تاغينا ادو الهي يراهدو ارين ادو علوس كولايل ايا دبادان كو هايسا دادك الريجي بوتي هدي اي تاهي عاصمة دا ايا دي اي تاهي قبول دا ارين كان ummadda reer Djibouti waa ay rogrogaysaa wayna ka hadashaa hoos iyo sarayba way uga hadashay laakiin maanta si gaar ah ayaan isku dul taagaynaa arrinkaasi waa arrinka caana la'aanta ee dalkeena ka jirta iyadoon ognahay tan iyo xagaagii hore ilaa maanta in ummadda reer Djibouti cunaqabatayn lagu soo rogay in ummadda reer Djibouti laga hor joogsaday inay iibsadaan caanaha ay rabaan in ummadda reer Djibouti laga hor joogsaday inay caana cabaan gobolkeennan taariikhdu waxay noo sheegtay cid loo odhan jiray aale boore oo caanaha la soo ururiyo dadka ka cabbi jiray waddankeenna hadda waxaa ka taagan noocaas oo kale ayaa ka taagan innakoo isdul taagayna cidda ka dambaysa ujeedka laga leeyahay iyo fariinteennii caadiga ah ugu tilmaamaynay wanaagga iyo ummadda in loo naxariisto walaalayaal ramadaankii ayaa nagu soo dhow arrinkani arrin laga aamusi kara maaha arrin dhegaha laga furaysan kara maaha arrin laga jooga maahine waa arrin laga hadlo xaqana waan ka hadlaynaa waanan baraarujinaynaa ummadda reer Djibouti annakoo u sheegaynaa dulumka lagu hayo xaq darrada lagu hayo cadaalad darrada lagu hayo walaalayaal dadkii da'da ahaa ee weynaa ee jalka qaadanayay caanaha u qaadanayay runtii dhib baa haysata dadna waxaa la sheegayaa inay jallaan u dhintaan waxaa kaloo dhibaatadaas caanuhu ay dhib ku haysaa carruurtii ayay dhib ku haysaa oo waxaa ka mid ah waxa cidda kale ay dhibta ku hayso dadka xanuunsan ayaa ay dhib ku haysaa waxaan isku daynay inaan u kuurgallo ogaanno waxaan keenay iyo ujeedka inaan soo booqanno baayac mushtarka kuwa soo dejiya caanaha ogaanana waxani ku dhacday runtii arrin lala yaabo arrin ceeba ayaa meesha nagaga soo baxay waxaana loo sheegay waa warar la hubo weeyi baayac mushtarkii baan la sheekaysanay waxaan la sheekaysanay dukaanadii baan la sheekaysanay waxa ay noo sheegeen in lagu qasbay in la joojiyo soo dejinta caanaha in lagu qasbay inay iibiyaan caanaha loo yaqaano caana qasab oo caanahaasi ay yihiin caana duude oo qoyska madaxtooyadu ay soo dejiyaan gaar ahaan lagu sheego ciyaalka uu dhalay Ismaaciil Cumar Geelle mid ka mid ah inuu soo dejiyo lagu sheegay nasiib darradu waxay tahay ceebtu waxay tahay waxaan la qaadan karin waxay tahay haba soo dejiyo inanka madaxweynuhu oo waxaan odhan karnaa annakoo indhaha iska qabanaynaa xaq buu u leeyahay inuu sida ubadada kale uu baayac mushtar gali karo xaq buu u leeyahay baan odhan karnaa annakoonan dhex geli karayn siduu xaq ugu yeeshay iyo siduu u baayac mushtarayn karaa waxaas annakoona galayn laakiin waxaan odhan karnaa haba xaq u yeesho laakiin cadaalad darradu waxay tahay dhibtu waxay tahay ceebtu waxay tahay ummadii kale ee caanaha soo dejinaysay waxa laga mamnuucayaa inay soo dejiyaan waxa lagu kordhinayaa cashuurta waxa loo diiday lagu qasbay in caana kali waddanka ayna soo geli karin caanaha qoyska madaxtooyada maahine taas waxay ku tusaysaa in dalkeennu meel halisa uu maraya bay ku tusaysaa waxay ku tusaysaa in nidaamkii dawliga uu meesha ka baxay bay ku tusaysaa waxay ku tusaysaa inaan meel mugdiya ku soconna bay ku tusaysaa oo waxa ka sii daran dadka qaarkood oon kula kulmay masjid dadka agdow madaxweynaha ayaa waxaan ka idhi niyahow
maad qabatiin ninkan eed la talisiin eed ag joogtiin baan ka idhi caana la'aantan iyo dhibaatadan shicibka lagu hayo runtii waxaan la yaabay baa meesha igaga soo baxay waxiise wuxuu noqday inuu ninka ama shakhsiga ka agdhow madaxweynaha igu yidhaahdo cabdiraxmaanow meeshu farahay ka baxday waxa uu madaxweynuhu ama islaantiisu ama caruurtiisu ay wadato kollaba kalama hadli kartid haddaad kala hadashid adigay qoortu ku go'an tahay waa nasiib darro weeyi waa arrin lala yaabo weeyi waa arrin ceeba weeyi haddii dadka kaa agdhow ismaaciil cumarow ay kaa gabbanayaan ama aad ka cabsiinaysid annakaa runta kuu sheegayna annakaa xaqa kuu sheegayna annakaa wanaagga kuu sheegayna dadkii waad cunaqabataysay caanihii baad ka cunaqabataysay caanaha ciyaalkaagu ay soo dejiyaan ayaad ku qasbaysaa waxaan kuu sheegaynaa walaalkayow siyaad barre markii uu dhacayay waxyaabihii ugu dhibta badnaa ama xasuustii ummaddu ay xasuusanaysay waxaa ka mid ahaa imisaan ku cashuuraa caanaha xadhaleyda marka la yidhaahdo waxay odhan jireen taliyayaashii wakhtigaa ka talin jiray ee taliskiisa ka mid ahaa u qurquri maanta waxay halkan joogtaa u qurquri way dhaaftay yacni u cashuur way dhaaftay oo waxay socotaa cunaha qaba bay socotaa waxaan kuu soo bandhigaynaa annakoo fikirkayaga siyaasadeed cabbirayna oo annaku haddaan halkaaga joogno waa aan furi lahayn waa aanan bannayn lahayn cid kasta oo reer Djibouti iyo cid kasta oo étranger inay soo dejiso waxalla waxay doonto waayo ummadda ka faa'iideysanaysa waa aw raqiisaya wax kasto batiba waxa ka faa'iideysanaya ummadda taas waaga aan annaku taliska qabanno ama uu isbedel dhaco ayay suura gali doontaa laakiin inta horteedna annakoo u nasteexaynayna ummadda annakoo wanaaggeega eegayna waxa aan kuugu yeedhaynaa caanahaaga ha socdaan caanahaagu inkastoon annaku ku leenahay caanahaaga jooji laakiin haddaad ku dhegtid ood leedahay inankayguna caanihiisu way soconayaan ha socdaan caanaha inankaagu laakiin caanaha kaloo dhan soo siidaa oo albaabka ka fur waxaan soo marnay kaasinoga waxaan soo marnay semiramis waxaan soo marnay nugabri waxaan soo marnay dukaanadii carabta meel kasta oo caana laga soo dejinayay ayaan soo marnay ummadaas oo dhan way cunaqabataysan yihiin ee cunaqabataynta ka sii daabaan ku leenahay wanaag baan kuugu yeedhaynaa waxaan kuugu yeedhaynaa naxariis baan kuugu yeedhaynaa dad baa jalla'aan u dhinta aan kuu sheegaynaa haddaad og tahayna waad og tahay haddaad ogayna waan ku ogaysiinaynaa ciyaalkii iyo haweenkii umushaaha iyo cid kastiba maanta way ciilan tahay way ooyaysaa iska daa cid kale ee inta ku ag joogta ee kugu meersan ee kula shaqaysa intaabaa ooyaysa annaku waan kuu sheegaynaa xaqa waan kuu sheegaynaa wanaagga waan kuu sheegaynaa wixii ummadda u dana waan kuu sheegaynaa walaalkayow taladan tala uga noqo insha allahu tacaala waxaanan kuu rajaynayaa inaad codsigayagaa qaadan doonto ood u naxariisan doonto ummadda ayaan kuu rajaynayaa waxaan kuu rajaynayaa inaad hooyada musha u naxariisanayso in dadka buka ee dhakhaatiirta ku jira u naxariisanayso inaad carruurta u naxariisanayso inaad bulshada reer Djibouti u naxariisanayso ayaan kaa rajaynaynaa insha allahu tacaala arrinkanna arrin aan ka aamusi doonna maaha kolba waan wadi doonaa xaaladdu sidaa ay tahay waxaan ku soo gabagabaynaynaa ummadda reer Djibouti meel kastoo joogtiinba waan idin salaamayaa jamhuuriyadda Djiboutina ha noolaato ummadda reer Djiboutina ha noolaadaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu